xadiiskii xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan daawadayaasha aan nagala xidhiidha hawada halkan waa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV daawadayaal waxaanu ku sugannahay bartamaha suuqa magaalada Boorama barnaamijka daawadayaal waa barnaamijkii su'aalaha Ramadaan ee weydiinaya warcelinta bulshada oo si toos ah uga daawan doontaan inta bisha Ramadaan lagu guda jiro telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV habeenkan caawana daawadayaal barnaamijka waxaa maalgeliyay shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company barnaamijka ayaa daawadayaal waxaa idin la soo siin doonaa anigoo ah Sakariya Cabdishaaf Farxan Saxane barnaamijkuna daawadayaal saatan ayuu noogu bilaami doonaa ee daawasho wanaagsan waatay daawadayaal hadda waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii su'aalaha Ramadaan ee weydiiyeen iyo warcelin waxa hadda garabkiga tahay ka qayb qaatay labada barnaamijka habeenkan caawa barnaamijkan daawadayaal habeenkan caawa waxa maalgelisay shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company walaal marka hore magaca ku bilaabay magacaygu waxa la dhahaa Mawlid Hussein Ciga la dhawaraa mawlido barnaamijka habeenkan caawa barnaamijkii su'aalaha Ramadaan waxa maalgelisay shirkadda caanka ku qalabka dhismaha Cabdirijan Company su'aalo markaa wax isku jiraan waa kuwa diiniya kuwa dhaqan kuwa taariikha iyo kuwa suugaanay taba wad ka helsa markaa su'aashii lagu weydiiyo bad adu ka jawaabi doontaa markaa su'aashu waxa ku leedahay waa su'aal diiniya waxaad sheegaysaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dagaalkii ugu dambeeyay asxaabadiisa uu kala qayb qaato dagaalkii ayuu ahaa su'aasha haddaan isku dayo dagaalkii ugu dambeeyay nabi maxamed oo ka qayb qaatay wuxuu ahaa dagaalkii la oran jiray dagaalkii Uhud buu ahaa nabi alayhi salaatu wasalaam waa tay daawadayaal ka qayb qaataas su'aashaasi la weydiiyay waa ku guul dareystay Uhud wuxuu ahaa dagaalkii labaad ee muslimiinta iyo gaalada dhexmara markaa su'aashaas waxaan weydiin doonaa ka qayb qaatay labaad aad iyo aad u maasantahay haddana waxa garabkayga ka taagan wiilkan dhalinyarada isaguna ka qayb qaatay barnaamijkan habeenkan caawa su'aalaha Ramadaanta ee weydiinaya warcelinta bulshada oo maalgelisay shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha Cabdirijan Company marka hore magaca ku bilaabay magacaygu waa Cabdiraxmaan maxamed barkad waana ku dhaw Cabdiraxmaan oo su'aaluhu waa su'aalo diiniya kuwa dhaqan kuwa suugaana tii la weydiin ma diyaaraan doontaa aan su'aashadan ku weydiinaa waxa ku leedahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan soo ma garanaysid goorma ayuu geeriyooday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu geeriyooday haddaan jawaabtaas ku dayo waxa weeyaan jawaabta in kastoona si sax ah u weeyaan haddaan isku dayo sayidku wuxuu geeriyooday bay ila tahay in 1900 ونحبتها ما هيني waatahay jibriilna soo noo sheegay su'aashaasi waa garaway waa ku guul dareystay waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena habeenkan caawa su'aalaha Ramadaan ee weydiinaya warcelin habeenkan caawa barnaamijka waxa maalgelisay shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company hadda waxa garabkayga taagan ka qayb qaataan wala marka hore magaca ku bilaabay magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Xasan Cabdiqani Maxamed Xasan oo su'aaluhu su'aalii bisha Ramadaan inta socotana si toos ah looga daawan doonaa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV waxaana ku tartamay oo maalgelinaya shirkadaha iyo meheradaha kala duwan ee ka howlgala gudaha magaalada Boorama marka aad su'aaleen ku weydiin doonaa dad ka jawaabto waxa leeyahay abaalmarin ka timiday Cabdirijan Company haddaad ku guul dareysana marka ku guuleystaan ku rajeynaya su'aaluhuna sida horaan u sheegnay waxay ku kooban yihiin kuwa diiniya kuwa taariikh kuwa dhaqan iyo kuwa suugaana iyo kuwa maadi markii tii lagu weydiiyo mad ka jawaabi doontaa marka su'aashan ku weydiinaya waa su'aal diiniya waxay ku leedahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markii uu hijrooday magaalada Madiina asxaabigii uu gurigiisa ku degay magaciisa kaaraba saxaabiga aad u garan maayeen aad iyo aad u maasantahay su'aashaasi haddaan ka jawaabno nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markii uu hijrooday magaalada Madiina gurigii lagu qaabilay ama gurigii asxaabigii nasiibkiisa inuu gurigiisa ku dego wuxuu ahaa Abu Ayyub Al-Ansari aad iyo aad u maasantahay inaad marka ku guursan ku rajeynaa waa tay daawadayaal wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena habeenkan caawa su'aalaha Ramadaanta ee weydiin iyo warcelinta bulshada habeenkan caawana waxa maalgeliyay barnaamijka shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company waxaana barnaamijkan ku tartamaya saan hore soo sheegnay meheradaha iyo kambaniyada kala duwan ee ka howlgala gudaha magaalada Boorama hadda ka qayb qaadanaya garabkiga taagan wala marka hore magaca ku bilaabay Axmed Maxamed Axmed Maxamed oo su'aaluhu su'aalii bisha Ramadaan markaa su'aaluhu waxa isku jira waa kuwa diina kuwa dhaqana kuwa maadiya inta baad ka helisa marka aad su'aashi lagu weydiiyo
uunbaad ka jawaabi doontaa markaa su-aasha aan ku weydiinay hadda waxa weeyaan waxaad sheegtaa dalkii ugu horreeyey qaaradda afrika oo xornimada qaata iyo sanadkii u qaatay dalkii ugu horreeyey ee afrika xornimada qaata haddaan isku dayo bismillahi raxmaan raxiim wuxuu ahaa South Africa taariikhda ku daran taariikhda والله هذا كنا نصيبيه ونصيبك 1955 aad iyo aad ayuu maasay ka qabqaata su'aashaasi uu ku guul daraystay muuse garan dalkii ugu horreeyay qaaraddan Afrika xornimada qaata waxa uu ahaa dalka Ghana waxa uu qaatay sanadkii 1957 inaad markale ku guuleystaan ku rajeynaa wali waxaanu ku dhex jirnaa barnaamijkeena su'aalaha Ramadaanta ee weydiinaya warcelinta bulshada barnaamijkan American Caawaya waxa maalgelisay shirkadda caanka ka soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company hadda ka qabqaatanaya garabkiga taagan marka hore magaca ku bilaabaya مولد بحبه mawliidow barnaamijku waa barnaamijkii su'aalaha Ramadaanta markaa su'aaluhu waxa isku jiraan kuwa diinay kuwa dhaqan iyo kuwa suugana markaa tii lagu weydiiyo mad ka jawaabi doontaa barnaamijka American Caawaya waxa maalgeliyay Cabdirijan Company haddaad su'aasha lagu weydiiyo aad ku guuleysatana waxaad leedahay abaalmarin ay soo bixisay shirkaddaas Cabdirijan Company markaa su'aasha lagu weydiinayo waa su'aal diiniya waxaad sheegaysaa asxaabiyadii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu khamiiskiisii uu ku kafanay أصحابيدي ورسولك خميس كيس أو كفر أمريكا يجيريوت سواشا ما دي بدل كرتا ما هو تلوي دي أسمع waad tahay aad iyo aad u maadsanyahay ka qayb qaadashada su'aashaasi kuma guuleysan inaad mar kale ku guuleystaan ku rajeynaya waxaan si toos ah u daawanaynaa oo inoogu socday barnaamijka su'aalaha Ramadaanta ee weydiin iyo warcelinta bulshada hadda ka qayb qaataan wiilkan dhalinyarta ee garabkiga taagan markaan adoo magaca ku bilaabaya maxamed su'aalahan ku weydiin doonaa haddaad ku guuleysato waxaad leedahay abaalmarin ka timid Cabdirijan haddaad ku guul daraystaan inaad mar kale ku guuleystaan ku rajeynaya waxaad ii sheegtaa Somaliland goorma xornimada qaadatay waa tahay ka qayb qaato aad buu daayar yahay iskuulkaada misad baa tahay iskuul ma dhigatid haye inaad waxbarashada gashaan ku rajeynaya su'aashaasi kuma guuleysan Somaliland waxa xornimada qaadatay sanadkii 1960 June wali waxaanu ku sugannahay bartamaha suuqa magaalada Boorama waxaanan wadnaa oo xaqani ka socda barnaamijkii su'aalaha Ramadaanta ee weydiinaya warcelinta bulshada barnaamijkeena American Caawaya waxa maalgelisay shirkadda caanka ka soo dejinta qalabka dhismaha iyo electronics-ka ee Cabdirijan Company hadda ka qayb qaadanaya garabkiga taagan marka hore magaca ku bilaabay magacayga Rayo barnaamijku barnaamijkii su'aalahan ku weydiin doonaa markaa su'aaluhu waa kuwa diinay kuwa taariikhi kuwa dhaqana sidoo kale suugaanta iyana ka madhayno meesha ku jirta markaa su'aashan ku weydiinayaa waa su'aal diiniya waxaa ku leedahay Nabi Ciise isagoo imise jira ayuu dhintay ama imise sano ayuu jiray bismillaahir rahmaanir rahiim taadaan isku dayo wuxuu jiray 65 waa tahay ka qayb qaadashada su'aashaasi kuma soo guuleysan Nabi Ciise wuxuu jiray calayhi salaam 137 sano inaad mar kale ku guuleystaan ku rajeynaya barnaamijkan daawadayaal habeenkina caawa waxa maalgelisay shirkadda caanka ka soo dejinta qalabka dhismaha ee Cabdirijan Company marka hore magaca ku bilaabaya magacayga aan ku bilaabaya waxa la yiraahdaa Cabdiqani Axmed Warsame Cabdiqani barnaamijku waa barnaamijkii su'aalaha Ramadaanta ee weydiinaya warcelinta bulshada su'aalahan ku weydiin doonaa su'aaluhu waxa isku jiraan kuwa diiniya kuwa taariikhi kuwa dhaqana aadu markaa tii lagu weydiiyo unbaad diyaar u ahaan doontaa oo ka jawaabi doontaa markaa su'aashan ku weydiinaya waxa weeyaan waa su'aal iska komana qaaradda Afrika imise dal ay ka kooban tahay waa Afrika dowladda Afrika waa tahay daawadayaal ka qayb qaataas waa ka qayb qaatay ugu horeeyay barnaamijkan American Caawaya ku guuleysta qaaradda Afrika waxa ka kooban tahay 54 dal waa sida uu sheegay barnaamijka American Caawaya waxa maalgelisay shirkadda caanka ka qalabka dhismaha Cabdirijan Company abaalmarintan ayaa markaa ay soo bixisay Cabdirijan Company markaa iyada maxaad leedahay Cabdirijan Company wallahi aad iyo aad buu dadaalayaan waana mahad celinayaa
maadaama uu sameeyey kartida intaa leeg iyo xarakaadka intaa leeg uu sameeyey waa abaalmarina dadka siinayo waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waad mahadsantahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta wadayaal weli waxaanu ku jirnaa barnaamijka habeenkana caawa su'aalaha radaanta hadda ka qayb qaatanaya garbikayga taagan marka hore magaca ku bilaabaya magacaygu waa cali aadan cali aadan oo barnaamijku waa barnaamijka su'aalaha rabadaanta su'aaluhuna sida aad maqlaysi weeyaan markaas su'aasha la weydiiyo unbaad ka jawaabi doontaa su-aasha ku weydiinaya waxay ku leedahay gobolkani awdal imise degmo ayuu ka kooban yahay gobolka awdal wuxuu ka kooban yahay 7 degmo 7 degmo ma kala tirin kartaa abuu wallaahi awdal baki والله ما كنت ترين كريم ويكلم مقاين لكن تدبر waa tahay daawadaalka qayb qaataas ku guuldareystay su'aashaasi qayb qaataan ayaa garabkayga taagan marka hore magaca ku bilaabaya magacaygu waa jibriil cabdullaahi cumar jibriilow waa barnaamijka su'aalaha rabdaanta barnaamijkan caawa waxaa maalgelisay shirkadda cabdiriijin company oo iyada aan ka soo dejinta qalabka dhismaha markaas su'aasha lagu weydiiyaa dad ku guulaystay waxaad leedahay abaalmarin ka timiday cabdiriijin company markaas su'aasha haddaan ku weydiiyeen adiga waxaa tahay waa su'aal iska taariikhi ama sida lagu tilmaamo suugaana waxaa ku leedahay sayid maxamed cabdulla xasan soo ma garanaysid goorma ayuu dhashay والله سيد محمد عبد الحسن هذا سؤال شاش كدايو سيد محمد عبد الحسن ولا شيء كون سغال بقوليو شيء بعتقي aad iyo aad ayuu mahadsanyahay jibriil su-aashaasaan weydiinaya sayid maxamed cabdulla xasan muu garan waa uu ku guuldaraystay ka qaybqaato kale ayaanu ugu bedelaynaa su-aashaasi oo aanu weydiinaynaa bal inuu isaguna garto ka qayb qaadanaya habeenkana caawa waxa maalgeliyey barnaamijka su'aalaha rabdaanta shirkadda caanka ku soo dejinta qalabka dhismaha ee cabdiriijin company hadda ka qayb qaataan wana marka hore magaca ku bilaabaya ani magacayga xasiib baa dhada xasiib cabdullaahi ibraahim xasiibo su'aaluhu waa su'aalihii bisha ramadaan waana sidaad ogeyd waa kuwa diiniya kuwa dhaqana kuwa suugaana markaas su'aashii lagu weydiiyo mad ka jawaabi doontaa su-aasha hadda ku weydiinaya waa su'aal diiniya waxay ku leedahay waxaad sheegtaa asxaabiyadii nebigu uu ku kafanay khamiiskiisa markay geeriyootay asxaabiyadii uu nebigu ku kafanay khamiiskiisa markay geeriyootay haddaan isku dayo su'aashaasi waxay ahayd mu'ta waa tahay wuu ku guuldaraystay xasiib su-aashaasi aan weydiinay asxaabiyadaas waxaa faadime bintu asad oo ahayd cali bin abi daalib hooyadii ayaa markay gooriyootay uu ku kafanay khamiiskiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tahay daawadayaal habeenkana caawa intaas waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeenu su'aalaha rabadaanta ee weydiinaya warcelinta bulshada barnaamijkan ayaa daawadayaal habeenkana caawa wax maalgelisay shirkadda caanku kaa soo dejinta qalabka dhismaha iyo elektronigiska ee cabdiriijin company barnaamijka ayaa daawadayaal waxaa si toosa ugala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee reer tv waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah sakariya cabdishaaq faarax sakari saxane dhanka kamaradana waxaa taagnaa axmed daacad daawadayaal tan intaa dib ugu kulmi doono barnaamijka xiga waxaan nagu dhaafinaa waad ku mahadsantii daawashadiine ismaqalta aragti dambe oo xiise leh Xurmeeyo nafta xakameeyo
xabiibkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta